بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحكبر النويدين تنأه وريسان أكاونين سهلا أكاونين وحنكو قيحي كرنا إن أي تهي نظام إنو سورة الجلينية إن انتحرى عنه أما أنكو لصعنه دقاقة مالية وليبا كدعا شركة سيدا دقاق لعق سوق جلينية شركة أما متكساري لعق haddaba la socoshadaas ayaa waxa ay inoo sahlaysaa inaan maareyno kheyraadka shirkadda kana fakirno hagaajinta iyo horumarinta meesha ay shirkadda u jihaysantahay si cilmiyeysan accounting waxaan ku qeexi karnaa in ay tahay hab nidaamsan ama cilmiyeysan oo lagu soo gudbiyo warbixinta maaliyadeed ee shirkadda ama hay-adda iyadoo la raacayo silsiladan kow diiwaangelinta xogta maaliyadeed ee maalin waliba ka dhaca shirkadda labo koobid ama isku xirka xogtaas sida ay isku leeyihiin saddex gorfaynta xogtaas afar diyaarin warbixin maaliyadeed sida financial statementska shan turjumidda macluumaadka maaliyadeed ee shirkadda ama hay-adda markana aan isla aragno qayb ka tirsan ujeedada laga leeyahay accounting midaasoo ah in la helo xog sugan oo faa'iido u leh stakeholderska kala duwan ee shirkadda sida maamulka shirkadda dowladda maalgashatada iyo dadka deynta ku leh shirkadda oo xogta ay diyaariyaan qolada accounting waxa ay u adeegsadaan stakeholderska inay go'aan sax ah gaari karaan si ay u ogaadaan meesha ay hadda shirkadda taagan tahay maxaa la rabay in la gaaro maxaa khaldamay shirkadda deynta lagu leeyahay ma iska bixin kartaa canshuuraadka ay dowladda ka rabto shirkadda ma la bixin karaa sidoo kale maxaa la qaban doonaa si loo gaaro ujeedada la hiigsanayo iyo wixii la halmaala sidoo kale xogta accounting waxa ay muhiim u tahay ganacsigaaga oo waxaad ogaan kartaa waxqabadka shirkadda iyo heerka ay hadda taagan tahay si aad go'aan sax u gaartid sidoo kale xogta accounting qaabka loo soo diyaariyey waxaa lagu hubiyaa in ay shirkadda u hoggaansantay shuruucda diyaarinta warbixinta maaliyadeed ee la rabo in la raaco marka la diyaarinayo warbixinta maaliyadeed iyo shuruucda canshuuraadka iyo wixii la halmaalo oo sharci ah oo laga rabo inay qolada accounting ay u hoggaansamaan sidoo kale riboodka ama warbixinta ay diyaariyaan qolada accounting waxa ay inoo suurtagelinaysaa inaan la soconno hantideenna inta ay la eg tahay deyntana lagu leeyahay waa imisa dhaqdhaqaaqa shirkadda soo gala waa meeqo qarashaadka shirkadda ama hay-adda waa imisa sidoo kale in aan qiimeyno faa'iida samaynta shirkadda iyo inaan ogaano meesha u baahan in laga sameeyo horumarin ama halkeebay shirkadda ka liidataa si loo gaaro heerka maaliyadeed oo ay shirkaddu hiigsanayso mustaqbalka haddaba ogow haddii aanay jirin xogtaa ay diyaariyaan qolada accounting go'aan sax ah cid gaari karta ma jirto lamana ogaan karo halkee looga baahan yahay isbeddel ama in la horumariyo si loo gaaro ujeedada maaliyadeed ee shirkadda si qaas ah iyo gaaridda ujeedada guud ee shirkadda si caam ah insha allah sharaxaadaha soo socda ayaan kaga hadli doonaa ama aan sii faahfaahin doonaa accounting processka aan ku soo aragnay qeexidan accountingka xog dheeraada oo ku saabsan stakeholders iyo financial statements fadlan ka dhegeyso lifaaq hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay mahadsanidin waa inuu markale haddii rabiidmo